السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال سو دوادا maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago war la xiriira bahal la yiraahdo Strandhog oo ku soo biiray saaxadda vulnerability-ga Android-ka bahalkaasi khataro badan buu leeyahay oo hadda soo biiray oo dad badan aanay war badan ka hayn aan ogeyn marka maanta kaasan sharixi doonaa sidoo ku yimi iyo waliba waxa jira qaabab badan oo la isaga ilaalin karo laftigoodu laakiin inkastay aad u adag tahay oo qof walbana uu isticmaalayo internet mar walba uu isticmaalayo bal aynu gudagalno waxa uu yahay iyo cidda soo saartay iyo cidda ogaatay niman researchers ayaa soo saaray oo ogaaday oo markaa waxaan dabagalay war badanna ka soo helay inaguna marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno marka dadkeena kale si ay aad iyo aad ugu warhayaan oo in ciladahaasi ay soo baxeen si fududna lagu jabsan karo qofka wax kastuu leeyahay haday tahay Facebook haday tahay iyo WhatsApp haday tahay any social media platform ku doona ha noqdo marka isla socod fiican okay waayahay bahalkani aan hadda idin sharaxayay ayaan rabaa cidda soo saartay horta waxaa soo saaray niman researchers oo magacooda la bromon.co ayaa soo saaray waa nimankaas weeyaan waliba waxa baaray oo research gareeyay nimanka magacyadan iskale ee halka ku yaala warbixintani waxa weeyaan waa Strandhog vulnerability waa nuglaansho ay yeelatay Android-ka aynu isticmaalayna teleefoonadan Android-ka ah Samsung ha noqdeen Huawei ha noqdeen waxaasoo dhan kuwaasoo dhan weeyaan marka Bromon security researchers waxay heleen baa la yidhi caddayn ah in dangerous Android vulnerability oo magaceeda loo bixiyay nuglaansho uu nugul yahay systemka Android-kan isticmaalayno magaciisana loo bixiyay Strandhog in la helay waxay u ogolaanaysaa baa la yidhi nimanka la yiraahdo that allows real life malware maxay weeyaan fahansiyo waxa weeyaan in ma garanaysaa malware-ka ama malicious software-iska xunxun ee ay sameeyaan nimanka attackerska ahi baa la yidhi in ay iska dhigaan baa la yidhi oo ay isku dhex qariyaan oo ay dhex joogaan kuwa aynu isticmaalno software-rada aynu isticmaalno sida Facebook-ga sida WhatsApp-ka iyo kuwa kale oo fara badan inay isku soo dhex qariyaan ayaa iminka la soo saaray oo la ogaaday qof kaliya oo ogaan karaana ma jiro qofka user-ka ahi waxa uu isticmaalayo war kama hayn karo mana garan karo waxa kale oo jirta waxyaalaha soo socda waxay sameyn karaan saameyntiisu intee ayay la eg tahay vulnerability-gan macnaheedu waxa weeyaan waa nuglaansho uu nugul yahay Android-ku in hadda la ogaaday kaasoo ah software-rada malicious software-ku inay iska dhigi karaan wax isku dhex qarin karaan ama iska dhigi karaan waxa la yiraahdo software-rada caadiga ah ma kadibna la qaadanayo wax alla wixii aad lahayd nooc kasta oo Android ah hadduu yahay 9 7 10 8 nooc kasta way u nugul yihiin ciladan waxaa kaloo khatar ku jira baa la leeyahay 500 oo applications ah oo caan ah ayaa khatar ku jira oo Facebook uu ku jiro waxaa la yiraahdaa marka waliba software-kani baa la yidhi vulnerability-giisu waa real life waxaa kaloo jira baa la leeyahay iminka lama caddayn karo waxyaalo badan oo hadda la caddayn karin weli ayaa jirta waayahay laakiin xataa uma baahna in la galo root access in la sameeyo looma baahna xataa uma baahna in lasoo galo si kale loo soo galo waxyaalaha muhiimka ah oo ay sameyn karaan maxay tahay waxyaalaha ay sameyn karaan waxaa ka mid ah baa la leeyahay waxay dhageysan karaan microphone-ka ku hadlaysa iminka kana wax ku duubanayno oo halka inoo yaala ayaa lala socon karaa waa la dhageysan karaa ayaa la leeyahay sawiro ayaa kaamaradaada laga qaadi karaa adigoo iminka hor fadhiya ayaa kaameradii sawiro laga qaadi karaa waxaa la akhriyi karaa baa la yidhi SMS-kaagii ayaa la akhriyi karaa message-yada lagu soo diro waxaa kaloo la akhriyi karaa baa leeyahay in la record garaysto conversationska telefoonka dushiisa ka dhacaya waxaa kaloo la leeyahay waxyaalaha ay aadka u geli karaan waxaa phishing attack ay ku sameyn karaan login-kaaga Facebook waxaad ku gasho username-kaaga iyo password-kaaga telefoon hadduu yahay hadduu email yahay hadduu wax kale yahay waa la geli karaa waana la heli karaa baa leeyahay sawiradaada oo dhan ayay geli karaan waxay heli karaan GPS-ka meesha adigoo iminka ah ku sugan tahay global positioning system meesha marka aad joogtay GPS-keeda waa la ogaan karaa contact listigaaga ayay geli karaan phone logs-ka ayay geli karaan kuwaasoo dhan ayay geli karaan haddaba waxaa la isweydiinayaa sidee ayay tani ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa waxa weeyaan sidan ayay ku dhacaysaa marka koowaad
abka wuxuu kugu muuqanayaa sidii ab caadiya oo halkaa kuu saaran oo kale ayay ku noqonaya marka aad click siisid ee aad ku dhufatid waxay dhacayaan waxa la yiraahdo meeshii aad ka geli lahayd Facebook oo kale hadii Facebook bad click ku dhufatay meeshii Facebook aad ka aadi lahayd wuxuu ku dirayaa waxa la yiraahdo mid iska dhigdhigay inuu kii caadiga yahay inuu Facebook oo kale yahay farsamada waxa la dhihi jiray clone ayaa la dhihi jiray laakiin iminka nimankan baaba nashqadii ka guurayba application kan ayay isku soo dhex qarinayaan gabigooduba kadib markii waxaagii aad galgashato intaadan gelin ka hor wuxuu ku weydiinayaa su'aalahan ku weydiinaya su'aalaha ku weydiinaya waxa weeye kamida number 1 SMS ka inaan geli karno noo ogolow adigu Facebook gad mooysa waxa wow Facebook maanta waxaan iga weydiinaya ama WhatsApp ku maxaa iga weydiinaya allo ba iska dhahaysa allo marka dhahdid bas waa la geli karaa information kaagi waa lagu dhex dabaalan karaa waa la dhex joogi karaa marka waliba waxay leeyihiin oo kale farsamooyin kale oo badan waa kan markaa qofkii tusaale ahaan wuxuu ku dhuftay Facebook oo kale maruu ku dhuftay informationkiisii buu gelinayaa kadibna wuxuu u dirayaa kanuu usoo dirayaa because app caadi ayay iska dhigayaan marka sawiradaadii baa la qaadan karaa halkanaa laga sameeyey marka videos ayaa laga sameeyey videoga laga sameeyey iminka wuxuu sheegayaa wax tiro badan laakiin waxyaalo badan bay ku samayn karaan telefonkaaga ma ogaan karaa qofku markaa ma ogaan karaa qofku ma ogaan karo dadka qaar waxay soo weydiinayaan two factor authentication waa ka halkaas uu fadhiyaa qofku halkaas laga la soconaya two factor authentication ma laga socon karaa maya hada qofkan sawiradiisa baa lagu jiraa sawiradiisa baa la daawanaya informationkiisa dhan baa la daawanaya messageskiisa baa la daawanaya wuxuu dhan baa la daawanaya bartu marka jooga la daawanaya haduu intuu xagga iska tago meel iska soo fadhiisto uu diro ma garanaysaa wixii telefoonkiisa iska jira waa la socda marka login screen fake ayaa ku soo baxaysa sidii markii dhaweyto aan idin sheegay so maxaa looga hortagi karaa inagu waxaan uga hortagi karnaa waxa weeyaan number 1 in qofku marka koowaad uu aad u yareeyo appska uu la soo degayo waxyaalaha muhiimka hadda kamid waxa weeyaan linkska lagu soo diro ha ku dhufanin any link ku doona ha noqdo haddii uu ku weydiiyo permission dhageysta haddii application hore uu kugu duubnaa uu permission isku soo saaro oo ku dhaho allow iyo markuu cusub yahay uu ku weydiinaya laakiin markan hore kugu duubnaa hadduu ku weydiiyo take care حتى مركو عصب يهي أبس بدنا ويكويدين يعني SMS كاغا مجلي كرنا call كاغا contact list كاغا photos كاغا تسالهان لا صورة على قد حدري يا تسالهان ما سينشر كوكله وحد يقول تي كرتا وحويان inaad kuwaasoo dhan haddii ku weydiiyaan aad iska yarayso iminka abiska kugu duuban aad deysato horey waxaan usoo deynay sida loogu duubto muxuu ahaa antivirus mobilka kuwa laftigooda aad dib u baadhid internetka marka mobilkaaga aad ka maqan tahay oo kale aadan u baahnayn oo kale aadan ma garanaysaa u furin internetka aadan u baahnayn ha u furin mar walba markaad u baahantay ka gal ka bax markaas waxaad kaloo aad u isticmaashaa waxa leedahay computerkana antivirus ku dar talada ugu dambaysa marka aan bixinayno waxa weeyaan iska update gareeya computerada update gareeya mobilada update gareeya mobiles kayna iska update gareysaan waa very important qof kasta update ka tago iska soo update gareeyo haddaanad garanaysid sida loo update gareeyo qof saaxiibka settingka gal update ka baad software update iska update gareeyo kaloo jira warkan xiga oo aan idinku soo dari doona waxa weeyaan cillad weyn oo kale oo ku timi Windowska laftigiisa oo vulnerability khatar ah hadda la ogaaday iyadana marka kuwaasna haddii alla idmo waxaan ku soo deyn doonaa wararkeena dambe ee la xiriira casharada cyber security-ga isla socod fiican dadka kale aan ogeyna aan la sii wadaagno. Assalaamu calaykum.